أنا جوا حبارنا هاي ما حبار قبت مارت أنا جوا حبارنا هاي يا نهار محمد سياد برهنا حباري هل قفوا إيمان لما جري ذلك إيمان كألا إذا كقاد بيقول إلى هنا وكأقبله كوبي لباتن سنة كوبي لباتن سنة نيكي ذلك حكومي ما أنتوا كبح فوسطنا أفتوا قدام وايا قف كنا مركو أمد وحكاها اللين هيو أما ضل وحكاها اللين هيو وحا أبوه الريو تلاوة وقاله وينو هنتيو دقاتا دقالة سمية فوسطنا أفتوا قدام وايا محمد سياد أسوي قريه أولها نحلك علمه ساهد بوسية صوماليو أقول دقة نكاس إنه صومالي وحكاها اللي مرهبة مايا مرهبي صومالي أنا وحهم بيك ودرتي وحفي عنا ويكدرته لما تصدقني اللي حسنا waxa loo gabixi lahayd dhibaatada wixii fiicnaa oo loo gudbi lahaa baa hore loo cunaa wala soo qaata ayadoo wax dhiman oo fiicnaan aysan jirin yaa xumaatadii la raadiya xumaatadii baa lagu jiraa cadaabtaas lagu jiraya wax ka baxayana male 300 oo erey buu leeyahay xasan sheekhaas qof Soomaaliyeed kala hadlaynin maarta adiga weliga qof walba meediya hasta 9 jeer buu hadla aniga badan Allah ka dhigay jeer buu kala hadlayaa waxaana lagu ducaysan jira ha iyo maya Allah hal meel hanooga yeersiin hal meel ba waxa lagu leeyahay hadda hal meel ba waxa lagu leeyahay maanta wax kale lagu maya xasan bay noo sheegay qof baan maanta qof baan maya siyaasaddu birshuba meel ka baxday ma ma garatay laakiin siyaasadaadu waa inay adiga ku dilin inshallah maxaa siyaad barre madaxweynaha hore wadanka waxa tiri wadanka uu habaaray dadka uu habaaray maxamed siyaad barre Soomaaliya muxuu qabtay Soomaaliya wuxuu qabtaan ku sheegay Soomaaliya horta markuu imaan hayay dawladda Soomaaliyeed oo dhafiisha gobolka deganeed dawladda Soomaaliyeed fiisha gobolka guri u ahayd oo deganeed qolqol bay lahaayeen waxa wasaarad uu sameeyay iyo wuxuu dal sameeyay iyo wuxuu hanti sameeyay iyo wuxuu dhismo sameeyay waad aragtay hal jida hay'ad markuu u yimid caasimada Soomaaliya 54 isgoys buu uga tagay 54 isgoys buu uga tagay hal isgoys hayna lahayd markuu imanay ha 54 isgoys buu uga tagay 8 gobol buu ugu yimid oo 18 gobol buu uga tagay 8 gobol buu ugu yimid markuu imanay 8 gobol bay 18 gobolna waa uga tagay ummadii Soomaaliyeed oo reemiyiga ahayd afku ay leedahayna wuu u dhiga ilaa iskuul birima ilaa jaamacadna iskuul free hoosiya caafimaad free hoosiya biyo free hoosiya waxa ay sugayso loo qaban lahaa maxay ahayd oo kale jannada ka weyn oo la geli lahaa adduunka intaas cid bixisay ma jirto maxamed siyaad qofka soo barin waa yartahay waana lagu caasiya waxa socdana waa xaqiraadii la xaqiray wixii uu qabtay laga xaqiray weey dadku waxay duloobaan oo inkaaro ku dhacdaa oo fool xumaada